waraysi ay siisay in maleeshiyaad taabacsan Israa'iil oo caloosho shaqaystayaal lagu arkay dagaalka taasoo ay sheegtay in Israa'iil iyaduna laga argooso doono arrintan ayaa waxay u egtahay inay soo dedejin doonto in Ruushku uu taageero lixaad u muujiyo ururada ay kamid tahay Hamas iyo Hezbollah taasoo ka dhigan in iyaduna ay mar kale dhulgariir ku noqon doonto qadiyada dhanka kale madaxweynaha dalkaas la doortay dhawaan Macron ee dalka Faransiiska ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray dhigiisa dalkaasi Russia iyagoo uu yahay ninka kaliya mar walba telefoon soo diray Putin ayuu kala hadlay sidii loo saftari lahaa dagaalka Mr Putin ayaa u sheegay haddii dalalka reer galbeedku daacad ka tahay inay dagaalka joojiyaan oo dagaalku istaago marka horeysa iyagu inay joojiyaan isku hubaynta iyo waliba gargaarka hubka iyo saanada ay siinayaan ayuu yiri dawladda dalkaasi Ukraine isla markaana wuxuu sheegay in waligiiba isagu diyaar u ahaa inuu wada hadal galo saddexdii sano ugu dambeeyay waxaan diyaar u ahaa ayuu yiri inaan wada hadal la galo oo aan wada hadal dhab ah aan ku wajaho ayuu yiri ciladan iyo dhibaatooyinka halkaas ka jira laakiin wuxuu ka digay dalalka reer galbeedka ay u muuqdaan kuwa isbihinbihinaya marar badanna muujinaya inaysan arrinta daacad ka ahayn Macron wuxuu u sheegay in uu joojiyo hadeerto dalalka saaxiibadiisa reer galbeedka una sheego kuna qanciyo inay hubka saasta iyo saalada ay joojiyaan Puntland qismaha madaxweynaha ee halkaasi hadsan talada ka haya Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karash ayaa xalay warqad nimira oo soo saaray wuxuu xilkii kaga qaaday saddex kamid ah wasiirada oo kala ah wasiirka amniga Kamaaliyadda iyo kan arrimaha gudaha isagoo saddex kale ka bedelay arrintan ayaa imaanaysa iyadoo maalmihii ugu dambeeyay Axmed Cilmi Cismaan Karash uu waday dadaal xoogan iyo waliba safarro uu ku kala bixinayo qaar kamid ah gobolada Puntland halkaas ay ka jireen xaalado abaaro sicir barar iyo waliba iyadoo ay jireen in xukuumadda Saciid Cabdilaahi Dani iyo shacabka Puntland qaarkood ay kala yardheysnaayeen si kastaba ha noqotay warqadda uu madaxweyne ku-xigeenka ahna qismaha madaxweynuhu uu soo saaray ayaa markale waxay dhirbaxa toos ku ahayd ragga lafdhabarta oo ah taageerada Saciid Cabdilaahi Dani ee uu kaga yimid magaalada Garowe xukunkeeda ka hor inta uu sanad u soo bixin magaalada Muqdisho uu ka wado olole ka dhana sidoo horey u sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu xilka ku soo noqon taasoo ku tilmaamay in ay tahay yoolkiisa ugu weyn ee uu ka doonayo inuu siyaasadda Soomaaliya ka gaaro Karash marka uu ku sameeyay xalay toole golaha wasiirada waxa loo arkaa inay ku soo aaday kadib markii qaar kamid ah wasiiradaas ay ka dhagaadayeen la shaqeynta sida dhow ee arrimaha ku aadan in uu yahay kusmaha madaxweynaha aan ninka talada ugu dambaysan dartay Puntland iska leh khilaaf xooggan ayaa ka dhashay arrinta dastuurka uu ka leeyahay qodobka 81 ee ah inuu madaxweynuhu dalka ka maqan yahay gorsiyoorisay madaxweyne Dani wuxuu ku dooday inuusan dalka ka maqnayn maadaama uu joogo magaalada Muqdisho xarunta dalka sidaadeedna aan loo daliilsan karin in uu yahay Mr Crash kusin haddaba qaar kamid ah mufassiriinta dastuurka ayaa sheegay in gudaha marka laga hadlayo dalka loola jeedo Puntland maadaama Saciid Cabdilaahi Dani uusan hayn madaxweynaha Soomaaliya sidaadeedna dastuurka Puntland oo cadeynayo waxa laga wado gudaha deegaanada Puntland si kastaba ha noqotay arrintan ayaa markale waxay keenaysaa in ay majraha u qabato khilaaf ugu oo sii ragaadiya Puntland hase yeeshee qaar